السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abna official wadan jalka ay ku cusub tahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaaladan xiga. Muuqaalkani waxaa kaga sheekay doonaa shirkadda Nike. Nike waa shirkad aad u taqaanaan dhammaantiina, waxa caan ku tahay calaamada tikida ah ee qalloocan ee saxda camal ah. Nike Incorporation waxaa la aasaasay 1964. waxaa lagu aasaasay magac loo yaqaan Blue Ribbon Sports. waa shirkad dharka ee sportiga ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo xarunteedu yahay Bowerton, gobolka Oregon. magac ahaan waxaa laga yaabaa badanaa in anaga u naqayno Nike, laakiin magaca asal ahaan lagu aasaasay waa Blue Ribbon Sports. waxaa aasaasay nin loo yaqaan Bill Bowerman oo ahaa tababare jaamacadda Oregon iyo ardaygiisii hore Phil Knight. waxay fureen meeradoodii ugu horeysay ee tafaariikhda sanadkii 1966, waxayna bilaabeen kabaha caanka ee Nike sanadkii 1972. shirkadda waxaa loo bedelay Nike Incorporation 1978, waxayna soo shaac baxday 2 sano kadib. horaantii qarnigii 21aad, Nike waxay lahayd xarumo tafaariiqle iyo kuwo wax lagu kala iibsado in ka badan 170 wadan oo adduunweynaha ah. astaanteeda waa calaamada qallooca loo yaqaan swoosh. waa calaamada saxda oo kale ah oo aan dhammaanteena wada garanayno, waana calaamada looga yaqaan adduunweynaha oo dhan. Nike Incorporation waxay naqshadaysaa, horumarisaa, suuq geysaa oo iibisaa kaba tayo sare leh, dhar iyo qalab, agabyo iyo adeegyo. waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah kabaha isboortiga. Nike mar waliba waxay diiradda saartaa dhowr qaybood oo muhiim u ah isboortiga oo ay ka mid yihiin orodka, kubadda kolayga, kubadda cagta, tababarka ragga, waxyaabaha ay u baahan yihiin, tababarka haweenka, waxyaabaha ay u baahan yihiin. dharka isboortiga ee Nike waa mid laga wada isticmaalo dhammaan adduunweynaha oo idil. waxay sidoo kale suuq geysaa alaabada lagu talagalay carruurta iyo sidoo kale isticmaalka madadaalada sida baseballka, cricketka, golfiska, nashaadka caalamiga ee dalxiiska ah, tenniska, volleyballka, socodka iyo legdega. shirkadda Nike waxay ku iibisaa iyadoo adeegsanaysa magaca Nike brand oo ay ku jiraan boorsooyin, sharaabadyo, kubadaha isboortiga, indho-shareedka, waxyaabaha loo adeegsado dharkooda, iyo aaladaha loo isticmaalo qalabka ilaalinta ee garoomada caalamiga. sidoo kale wax allaale wixii ciyaaryahanka u baahan yahay, haddii ahaaleed fanaanad, haddii ahaaleed kabooyin, haddii ahaan lahaayeen galoofiska gacmaha la gashanayo, wax allaala wixii sports ku shuqul leh, sportska noocyadiisa oo kala duwan. shirkadaha ay wada leeyihiin iskaashatooyinka waxaa ka mid ah shirkadda loo yaqaan Converse Incorporation oo naqshadaysa, suuq geysa oo u qaybisa mar walba xagga kabaha iyo dharka iyo agabya. sidoo kale waxaa jirto shirkad kale oo iskaashi ay la leedahay oo loo yaqaan Harley International LLC oo naqshadaysa, sidoo kale ayadana marna suuq geysa u qaybisa isboorti ee kabaha dhammaan qeybaha nololeedka ee wadamo qaar. Nike waa shirkadda ugu weyn adduunka ee iibisa kabaha iyo dharka isboortiga, waana soo saaraha ugu weyn xagga qalabka isboortiga, iyadoo dakhligeedu ka badan yahay 37.4 bilyan sanad maaliyadeedka 2020 kuna eg 31 May 2020. laga soo bilaabo 2020 waxay shaqaaleysiisay 76,700 oo qof oo adduunka ah. sanadkii 2020 astaanteeda keliya
ayaa lagu qiimeeyay in ka badan 32 bilyan, taasoo ka dhigaysa astaanta ugu qiimaha badan ganacsiyada isboortiga. Markii hore, sanadkii 2017, summadda Nike waxaa lagu qiimeeyay 29.6 bilyan. Nike waxay ku jirtay 89 liiska 2018 Fortune 500 ee shirkadaha ugu waaweyn ee Mareykanka ee dakhliga guud. Haddaba waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelka si ay kusoo gaaraan muuqaaladan xiga.